بسم الله الرحمن الرحيم dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan adduunyada daafeeda waxaan uga tacsiyeenaynaa dhacdada dhibka badan ee soo bilaabatay xalay ilaa saacadan aan joogno waxa ay ka harsan yihiin dhacdadaas oo ku salaysneed dhagar qabayaasha al-shabaab ururka argagixisada ah markay soo abaabuleen howlihii ay soo abaabuli jireen qaar kamid ah oo ay magaalada soo galiyeen laba gaari oo qalabka waxyaabaha qarxa lagu soo buuxiyay ayna ku qarxiyeen laba meelood oo magaalada Muqdisho kamid ah halkaas oo ay ka dhalatay runtii dhibaato aad iyo aad u baahsan oo dad Soomaaliyeed oo aan waxba galabsan oo guryahoodii jiifo dukaantoodii joogo goobihii ay ku nasalahayeen fadhiyo ay ku baabi'iyeen arrinkaas oo runtii aad iyo aad u xanuun badnaa oo ay sameeyeen dhacdadaas inta ku dhimatay inta ku dhaawacantay ayaan guud ahaan Soomaaliya uga tacsiyeenaynaa gaar ahaan eheladii dadka dhaawacan ama dadka dhintay ayaan ka tacsiyeenaynaa waxaan rabnaa bulshada Soomaaliya meel kasta joogto inaan la wadaagno arrimahan sida ay yihiin iyo xaqiiqada iyo waxa ka dambeeya ugu horeyn falkan waa fal argagixiso ah waa fal aan hore u sheegnay in hadafka laga leeyahay ay tahay qof Soomaaliya oo dantiisa haysto in dantiisa ama noloshiisa la gafsiyo aan hadaf kale lahayn meelaha hadda ay soo bilaabeen waxa kamid ah guriga kamid ah suuqa kamid ah lama beegsan xataa meelaha ay gardarrada ku beegsan jireen dawladdu ay leedahay amba ha noqoto maxkamado amba ha noqoto xarumo booliis amba ha noqoto wasaarado oo iyaga nafsadooda beegsigooda oo gaf iyo gardarro ahaa iyo diinka fogaash xataa kuwaas ma aanay beegsan waxay beegsan dukaamo laga adeeganayo waxay beegsan guryo la jiifo waxay beegsan waddo la marayo waxay beegsan dad nolol caadi haysto dambiga ay dadkaasi ku jireen waxay ahayd nolol baa u shidnaa nolol bay haysteen waxay tarjamo ka ahaayeen rajada Soomaaliya ee soo laabanayso waxay tarjamo ka ahaayeen dadka Soomaaliyeed ay ugu soo kalsoonaanayaan oo isku soo aaminayaan dalkooda ay tusaale ka ahaayeen dhiirashada ganacsada Soomaalida ay ku dhiiranayso saacada ka dambayso maalinta ka dambayso inay xoolaha iyo adduunka kale ku isticmaal lahayn ama ku maalgelin lahaayeen inay dalkooda ku maalgashadaan arrimahaas dhagartaas ayaa timid dad bay ku waxyeeleeyeen dabcan dawladda Soomaaliya waxay had iyo jeer ku howlan tahay kana shaqeysaa kow dadka Soomaalida inay nabadooda ka shaqeyso amnigooda amaankooda ka shaqeyso iyo wax kasta horumar u noqon karo amniga laga shaqeynayay ciidamada sida gaarka ugu tababarnaa oo loogu talagalay ayaa ka howlgalay runtii waxaan rabaa xog muhiim ah dadka Soomaalida meel kasta joogaan in la wadaago waxa suuragal ahayd in muddo intaan aad iyo aad uga kooban lagu soo afjaro arrinkaas laakiin sida lagu yaqiinaba waxay gaashaan bani aadam ka dhigteen dad Soomaaliyeed oo waxba galabsan waxaan hubaa inaad muuqaalo badan oo aad la wadaagi kartaan ay jiri doonaan dadka daawadayaashiina muuqaaladaas oo muujinayo dhalinyaro Soomaaliyeed oo saraakiil ah oo soo badbaadinayo duqeyti Soomaaliyeed oo nimankaasi dabxirka ay u isticmaaleen ay soo furnayeen civilianka faraha badan ama dadka madaniga ah oo ciidanka ahayn oo meesha ay gaashaanka ka dhigteen soo badbaadintooda ayaa xaaladda dheeraysay dhanka kale waxaan rabaa inaan dadka Soomaalida meel kasta joogaan aan xasuusiyo annaga iyo shabaab dawladda Soomaaliya iyo shabaab ma wax loo garnaqi karo rag shalayta waxay soo abaabuleen saacadahan iyo ka hor iyo maalmo ka sii horeeyaba gawaari waxyaabaha qarxo la saaro oo dalka la keeno oo markii uu qarxo xigtadeeda ay noqoto in qoryo iyo rasaas inta la qaato meesha uu ku qarxay dadkii wixii haray iyo deeqdii wixii u hartay lagu baabi'iyo iyo ciidamadii dawladda oo hamigooda uu yahay kow inaan arrinkaasi imaan oo gaarigaas meel kasta looga hortago oo dadku ay amaan helaan oo goobaha magaalada ka baxsan iyo goobaha gudaha magaalada dhexdeedaba ay uga hortagaan ay ku celiyaan haddii ay dhacdo inuu soo jiiro sidii xalay timida dhacday oo taleex maxaan ku yiraahdaa checkpointiga ay soo jireen laga hor yimaado oo haddii ay meel galaan looga daba tago oo waxa ugu horeeyo laga shaqeeyo ay noqoto in dadka ku waxyeelooba hadday dhaawac yihiin la soo qaado hadday bad qabaan la soo badbaadiyo iska dhicinta nimanka la iska dhicinayana ay noqoto mid lagu miisaamo waxyeelada la'aanta dadka ay iyagu gabaad ka dhiganayaan waxa laga yaabaa masawirkaas dadka Soomaalida inuu macno badan u fasiri doono markay arkaan sarkaalka Soomaaliyeed wiilka Soomaaliyeed ee waayeelka Soomaaliyeed ee markaas ay ugu horeyso gacanta ka soo qabanaya soo badbaadinayo iyo dhagar qabayaasha dad aanay garanaynin meesha ay joogaan iyo nooca ay yihiin soo maagayo hadafkooduna uu yahay dil iyo dumin iyo dacdarayn
baraha bulshada in badan waxaan ku arkaa iyadoo lagu eedeynayo dawladda Soomaaliya ee dhacdooyinka noocan markay dhacaan waxaan jeclaan lahaa dawladda Soomaaliya waxyaabaha ay ku howlantahay waa fara badan yihiin waxa ugu horeeya in dadku nolol ay helaan in dadku amni iyo amaan ay helaan in dadku hope amba rajo ay helaan mas'uuliyaddeenu waxay ahayd intaanay arrintan u dhicin inaan ciidan badan ku fidinay dalka afartiisa gees magaalada Muqdisho maalin kasta ciidamo aan soo tababarnay iyo tiro cusub ayaan dhignay hadafka aan kaga leenahay ma ahan inaan haday meel galaan uga celin laakiin waa hadaf ka hortag ah inaanay soo gudbin waxyaabo badan ay soo gudbin rabeen waa laga hortagay waan ogsoonahay waa garowsanahay dadka Soomaalidu ka daba tag naga ma rabaan iyo daaweyn waxay naga rabaan ka hortag iyo joojin wax kasta oo dawladda Soomaaliya ay heli karto arrinkaas ku wajahan yahay tababar ciidan haday noqoto qalabayn haday noqoto kharash ku bixin hadii ay noqoto miisaaniyadda cadweyn loo qoonday hadii ay noqoto waqti gelin madaxda ay waqti gelisay hadii ay noqoto arrinkaaba ku wajahan yahay waxaan rajaynayaa maalin ka dambaysan inay ka soo raynayso waxaan rajo ka qabnaa inaan gaari doono maalin falku intaanu dhicin ay ciidamadeena si dhameystiran ugu wada guuleystaan oo magaaladan iyo magaalooyin kale aan nabadayno waxaan rabaa dhanka kale dadka Soomaalida inaan la wadaago anaga dawladda baan nahay dadaalan ku jirnaa ciidamada tababarnaa waa qalabaynaa qalabku ma dhameystir waxaan rabaa inaan dhameystir tirada aan rabno ma gaarsiis waxaan rabaa tirada inaan gaarsiis dhaqaaluhu uma dhameystir waxaan rabaa dhaqaalahooda inaan kordhino laakiin dhanka kale bulshada Soomaalida waxaan rabaa inaan la wadaago inay dawladda iyo ciidamadaba gacan ku siiyaan in arrinkaas wax laga qabto oo dhagar qabayaasha ay wax ka qabtaan waxaan kaga jeedaa shabaab wax laga cabsado ma aha waxaan looga cabsanayn cid haddii aad la dirirto iyo haddii aadan la diririn iyo haddii aad dayso iyo haddii aad qabato marna aan kugu daynayn oon daayiri kugu dhaafayn oo duqeytinimo kugu dhaafayn oon dhalinyaro sibilnimo kugu dhaafayn oo ciidannimo kugu dhaafayn wax dadka Soomaalida ay uga badaan oo aysan uga qayb qaadan ma imaan karto waxaan rabnaa qof kasta Soomaaliya waxaad ogaataa jidka markaad maraysid aba gurigaaga aad ku jirto aamin kama tiid shabaab kugu xurmayn maayaan inaad la dirirsanayn kugu xurmayn maayaan inaad birmageyda tahay kugu xurmayn maayaan inaad carruur haysatid kugu xurmayn maayaan inay dadku dad waayeel oo cajisa ay yihiin sidaas daraadeed waa cadow annaga dhan noo socdo oo nolol qof nool iyo meel nool ka jirto iyo nal shidan cadow ku ah sidaas daraadeed waxaa loo baahan yahay saf siman Soomaalida inay wax uga wada qabato dawladuna ay horseedi ka tahay arrinkaas wixii su'aalaha aan idinka jawaabi doonaa waxaan rabaa kaliya inaan idin sheego saacadaan idin hadlaayo arrintu sooma dhamaan laakiin saacada ka horeeyaan soo dhamay karo waxaan kaga jeednay civilianka iyo bulshada meesha ku jirto oo iyagu aanay dan kale ahayn inay xabad iska dhigaan annagu inaan xabad isu dhigno oo ciidamadeena xabad isu dhigaan oo iyagu soo badbaadinaan ku mashquulsanay waa ku guuleysanay dad maanta ku hoos jira ma jiraan laakiin hawlo ciidan ayaa meesha ka socda waxaan rabaa inaan idinku soo gabagabeeyo Soomaali meel kasta ay joogtaba amba waa soo qabanaynaa amba waan dilaynaa nimanka meesha ku jira waa mahadsantiin